horta marka ugu horeyso waxaan leeyahay annamiimu laa yadkhulu janna. Ani naaga kala shaqo kuma leeyahay laakiin farxii ahaanteeda iska hadlaa. Dadkiina muuqaalka ii soo dirdireyseen iyo gabadhaan huda amuuna waxaan leeyahay annamiimu laa yadkhulu janna. ولي واحد أوجينا كترحتينا ولي واحد أوجينا كترحتينا جوابتي نواتاس وإنسي حرجينا يا أنا خوقنا عدان تنكله الصومال حكومة ماذا صحن كوكت سان كوكت قلبي فرن على قلام ما هني الباب فرن لما قالوا إنا فهمتينا رجينا مع هذه. السلام الله عليكم صاحبي ku xiran YouTube kayga Zona Family meel bo joogtiin waqti boodin taa wanaagsan ayaa idin leeyahay soo dhawaada YouTube waa YouTube kiini gabadhu waa gabadhiini idinku xatiin dadkeeyii soo dhawaada sidoo kale asxaabta page Zona Family idinkuna sidoo kale soo dhawaada ayaa idin leeyahay sidoo kale waxaan rajeynayaa asxaabta timid page kayga farxii Zona inay iyagana inta u soo xan doonteen oo ay inta u soo war doonteen waxaan idin leeyahay war ana idin haayo wadna ilaahay soo dhawaada sida aad la socotaan muddo bil dhan asxaabteeda team farxii Zona waxay ii soo dirdirayeen muuqaal aad ayay u daneynayeen jawaabaha muuqaalkaas aan ka bixinayo ilaa haddana way daneynooyin way ii soo diraan waan iska indha tiraa way ii soo diraan waan iska indha tiraa way ii soo diraan waan iska indha tiraa laakiin hadda last year maraysaa sababtoo tahay muuqaalkaas inta badan dadka ii soo diray waxay u muuqdeen dad xumaato fahansan markaan xumaato idin leeyahay waxay tahay dad isku programiyay anigii shushu inuu isku dhacsanaano horta ani iyo shushu wax iskugu dhacno ama qalad ah shushu waa gabadheedoo kale waa walaasheeyoo kale aniga doo cilmihi waxaan iskugu dhacno anigii shushuune waaba wax qaladaba sababtoo tahay aniga waxaan ahaa qof maamo ah shushu habarteedaan ahay marna walaasheedaan ahay marna waa boqoradeedii Muqdisho bal yaan idinka hor dhicin muuqaalka horta aan idin daaro muuqaalka aan idin daaro شوشو عبد الله ما halka nagala hadlaysa halo waxa ii soo dirtay xafladeedu waa daawaday naag TikTok ku jirta oo caan kuma dhex arkin maxay tahay adig bas ku arkayay شوشو مك فرسوسان ha hadda message soo qortay gabadha xafladeed dhigatay naagi dhamiye kama sayreen xamar jooga waa ka shaqeeyay waa loo imaa waaye miskiinta halka milyan way soo urayaan heed saas soo urayaan cunugta yarta ana TikTok ka badnay wayna dhaafto waan ku faraxsanahay naagu wallahi ana xataa xafladeeda adig kaliya kugu arkay adig bas kugu arkay wallahi ana naaku arkay ana cirbad soo qaata u naagu xaasisana naaga heed naagu xabl saaxiib waay baa qabaa waxba kuma ogola musko galo wallahi ana cirbad u dooli u duro oo xanuunsan oo qarni karkarnaysa u tagay xafladeeda هذه مسج سوقرت بيبي واكو جعلها عدوغاغا u noolo asxaabtaada wiilashaada dhaxgal laagna saaxiib hal noqon naago dhanaalaha saaxiib hal noqonin heedinaha saaka arkay waa arkayay mar alaala markaan qortooyo xaalki iyo kaadidi muuqaalka waa daawateen inay fahanteen aan jeclahay namiim janna ma galo gabadhan kale Mrs Wallane horta Mrs Wall haba dhacdhac badnaato oo afkeeda waxa dhaxdhado laakiin boqolkiiba 99 waa gabar qalbi furan boqolkiiba 99 waa gabar qalbi furan qalbi jilacsan oo emotional ah hadal walba ee dhahdo
haddee wax xanuun iguma qabanayo laakiin dadkiinan muuqaalkan iisoo dirdiraya ee dhahaya naagahaas la sheegayaad ka mid tahay gabadha ma ka xuntaa 1 milyanka kama xumi su-aalaad dul dhigteena waxaa dhahdeen maxaa ugu soo hambaliyey weys maxaa ugu soo hambaliyey weys horta ani mid aa idin dhaho aniga shuushu 800,000 markii ay gaaraysay ee aan xafladeeda ka qayb galayay ee aan habeen 9 saac ee bar salaada subax oo lagu jiro inta la adimo lagu aqmis beerta banaadir aan dhex taagnaay intiina qof ogeed ma jirto intiina qof ogeed ama qof idirtay oo xafladaas ka qayb gal dhaxday ma jirto waa maya maantana ima dhihi kartiin maxaa ugu soo hambaliyey weys kos anaa qiyaar leh qof weynan ah teeda kalene hal mid aa idiin sheega aniga hal mid aa idiin sheega gabdhaha xamar joogo in eeda la saaro horta gabdhaha kale kama warqabo laakiin ani nafsadeeda ka hadlaahay in eeda la saaro waxaa ka horeyso in inta la casuumay ay diideen shuushuuna meeshay kasoo qusashay Soomaali waxay ku maamaadaa qosolba hiil waa galaa qosolka shuushuuna waxaan u arkaa ka raale ahaansho in gabdhaha xamar joogo way soo ureen la caayo la aflagaadeeyo way u quuri la yihiin la dhaho ee iyaduna israacisay sax dhahdo iyaduna ee israaciso ee sax dhahdo hadda saxay ka walax tahay inaan aniga iyadoo dad magaalada ila joogo iyadoo loo gafay hadaan soo qoslo waxay u egtahay inaan raali ka ahay gafitaanka loo gafay soo beentay horta asxaabteyda xandoonka ah ee Facebook ka timiday iyo intiina kale WhatsApp igu soo dirtay iyo inta luuq ii soo dhigtay iyo intii Facebook igu soo share gareysay iyo intii igu soo mishin gareysay ee itiri farxii shuushu ma istagaasheen dha horta mid aan leeyahay shuushu iyo aniga isma dagaalsanin shuushu marna waa gabarteeda abarraa u ah marna waa walaashay marna waa xidigteedii magaalada Muqdisho waxaa fahamtay Soomaa wixii aan isku dagaali lahayn isku keeni lahayn Allah naga haayo aniga ahaanteeda iska hadla aniga naaga la shaqo ma kulih naaga kale kulay muuqaalkan iyaga in loo diro waan jeclaa way ka soo hadli doonaan way ka aamusi doonaan laakiin aniga ka aamus isku lahay waa idin hur waay asxaabtaada ma marka qaar qancisi u baahan yihiin asxaabtaada ma marka qaar inaad qiimeynayso inay dareemaan u baahan yihiin waxa garatay ma okay hudo inta aadan gabdhaha Muqdisho aflagaadeelin waxa habooneed fikirkaaga inaad raacisid shuushuey gabdhaha maxaa u casuumo weysay maxaa uga dulbood maxaa u casuumo weysay inaad dhahdid aa ka horeysay aniga farxiyaan ahay xafladaha reer TikTok kuma badni meelaha ma istaagsani bilaash ay igu soo dirisiin aniga TikTok waa iska joogaa maahane reer TikTok uma tirsani sababta ugu tirsanay idin sheega sagaashan anigu beerta banaadir taagnaa ma karo qofna wax ilama duubto qofna lama duubo kursigaankeyga aan waxaan ka dhihiraba ka soo dhahaa TikTok howlahayga aniga ii qaaska ah leena soo dhigtaa waxaan TikTok inta waqti ku bixi u baxo asxaab meel iskugu taqal wax uma soo duubo taas aan ka jecel bixina dadkan TikTokerada ee TikTok isticmaalane horta asxaab kor waa iska salaanaa oo wadaas aragnimo islaana qadirintaas dad walaalahan isku magaalo oo isku leenahay laakiin dad asxaabo isku meel isku yimaado isla shaaxaysta manihin
dadka magaalada Muqdisho jooga ee TikToker-ka dad waxa kamid ah dad aanan ogeyn meel ay iga dagaalan ee blog isaareen kamid ah meel ay iga dagaalan ma ogi blog isaareen ayagoo blog isaaran ka war helay ana dushan ka saaray biri haday iga qaadan ay arki maayaan iyagana soo waxa karateen ma marka aniga xaflad aan tagay tishushu iyo Iswanozi mid bilaal oo ciid iga casuumay saddexdaas xaflad kan fikirad sugbamay mid afraad jirta Usmaan markuu 400 gaarayo shushu markii 800 gaaraysay waa saddex xaflad bis aan reer TikTok aniga ka qayb galay xaflad kale oo aan ka qayb galay ma jirto haddaan idin sheegaa xaflad aan leega casuumin oo aan heerya ay wacdo ka naqahaayna ma jirto xaflad aniga inaan ka muuqdo hadii la rabo qofka xaflada qaban qaabsanayo tiimka u qaban qaabinayo way yaqaanaan soo raadi karaan farxiyoy caaw meeshaas lagaaga baahan waqtigaaga noo soo markaas haddaan diido oo aan meeshaas ka muuqan waayo qofka horumarkiisaan ka xumaa markaas qofka horumarkiisaanba ka xumahayba waa war dhammaystiran qofka horumarkiisaan ka xumaa haddaan ka qayb geli waayo laakiin iidoon la casuumanin in haddana way soo ureen laa ilaaha illa rufiyaannimo meel lala soo istaago gabadhiina ay qalbiga wax iska gelisay qosol ku jiibiso waxna qabanayo ma aha ana farxi ahaanteed wax ay qabanayo ma aha cid wax u qabana ma jirto kaliya hadda waxa soo fadhiistay dadkiinaan igu xiran inaan idin sheego anigii shushu inaan waxba naga dhixin isna dagaalsanaynin horumarkeedana aanan ka xumaynin hadda howlahayga kalaan iskaga mashquulsanahay idinku waxa leedihiin shushu maxaa ugu hambaleeyaysay ma i weydiisin meediya maxaa uga maqan tahay riyahan dhan aniga meediya aan ka mashquulsanahay si kale u sii jeeday farxiyo meediya maxaa uga sii jeedaa ma i weydiisin taasa weydiis u baahan laga yaabaa gabdho badan inay qalbigooda wax galeen laakiin aniga farxiyaan ahay qalbigay waxba ma gelin gabadhaas walaashay horumarkeeda kama xumi haddaan u soo hambaliyay waayna aniga mashquulkayga i haystay oo iska sii jeedo Facebook-gay ka caajiso YouTube-kay ka caajiso meelihii lacagta iga soo galayeen ka caajisay adoo waxa ka hadlaysaa TikTok waxba iga soo galin ka hadlaysaa inta xaflad oo la dhigay haddaan ka muuqo waayana macnaheeda ma aha in horumarkeeda ka xumaa ee waa la casuumanin adiga hudaa maanta haddaan xaflad dhiganayo iyo aanan ku casuumin haddaan ku eeda ka war soo qalad maaha waxaas soo qalad maaha xisaab walaal macaanay gabdhaha isku dirin namiim janno ma galo annamiim laa yadkhulu janna ilaahayga u laabo hooyaa tahay hooyaan ahay leesku xadgudub ma fiicno kugu xadgudbi maayo laakiin waxaan ku leeyahay walaalay macaanay gabdhahan Muqdisho ku nool dhaxdooda ka baxa gabadhaas shushu ah cadow ha u beerin hada cadow ma laha Muqdisho cadow kuma laha lama xaqto aniga farxiyaa kula hadlaaya away maalin dad dhigta ku dhufta inta wacana ma dhaho shushu ee dartaan dad ula dagaal ma dhaho hadda inaan dhahleyga filma waa aniga shushu anaaba ogolaanaynin wax horumarkeeda ka xun anaaba ogolaanaynin dhaay horumarkeeda ka xun gabadha dhig marka aniga gabadha dusha ku sitay hada dusha iga qaninto ka war gabadhiyo dusha ii saaran hada igula qaninto hudo soo qalad ma hadalka aad dhahayso u fiirso idinkana asxaabteeda ii soo share gareyseen muuqaalkan waxa ay leeyahay wax walba saa u fahanteen ma ahan ee ka fiirsada وكما سنتين داوشة مقالك يا داوتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.